xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada hoos yimaada gobolka Hawd ayaa haatan u sii durkaysa maalinba maalinta ka dambaysa mid aad u adag maadaama oo ay abaarta deegaankan ka jirta ay tahay mid afirtirsatay dadka reer guuraaga ah ayaa mar aanu socdaal ku dhex aragnay qoysas ay xooluhu marka ay ka dhamaadeen xataa caruurtii xanuun kaga dhacay oo aan haysan wax ay hantiya oo ay ku geeyaan dhakhtar kuwan oo ka warbixinaya xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanka waxaan u leenahay qolada dawladda sheeganaysa ama se guddi abaareedda sheeganaysa ee nan warba kaayna saaka la sheegaya ma aakhire ka yimaade ma hayno qolada aad sheegaysaan ma hayno anagu ma hayno haday jirto ma hayno hadaan jirna ma hayno ee hadii meeshan cid u maqan tahay gobolada ka mid yihiin gobolladaba kama mid ahaaday kama baaha gobolka Hawd waa la dayacay waa la dilay waa gobolkii Soomaaliland dawladda waxaan ka codsanaynaa in abaartaan haysa balaaran si degdeg ah gargaar wanaagsan oo la soo gaadhaan oo biyihii baa noogu daran oo raashin ma haysano xooli way naga wada fadhiisteen iyo gaadiidka waxaan joogna xoolaa wixii dhintay iyo waxa saakadan la jiiday iyo intii kale ay soo mareen oo ay soo sawireen oo aan wax isdhaan aan lahayn jiidana way ku dhantaa aanu joogno ilaa wixii naga sii bareeyay markaan nahay gobolka Hawd taa laba daraad leh wax soo gaarid marka laga hadlayo sanadkan aynu joogno imika koobaad marka laga hadlayo cid ka socota abaaraha oo soo martay waa tiiko sidoo kale hooyo aanu kula kulanay gurigeeda oo ay xooluhu ka baxeen ayaa waxa ay noo sheegtay in caruurta qaarkood ka xanuunsanayaan oo ay u weyday tamare ay dhakhtar ku geyso dalada maxay heeday abaaruna xoog bay hadalada abaaruna idinka arkayo xoog bay noo saameeyay hadalada wixii horena naga madhay wixii yaraa dambena hadalada abaarta soo saambaraaci caruurta ay ka xanuunsanaysaa waa kuwa halka hadalada boorka farfadhiya ilaahay baa caawimale wixii nagu tari karaysaan dalada iman deed ka sugaynaa ilaahay baa gargaar ilaahay baa leh caruurtu sidaba u xanuunsanaysaa way suuxdaa way dhacaysaa saacad bay u dhacaysaa taliyaha qaybta gobolka Hawd oo kulankaasi kormeerka ah nagu helinayay ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada gobolka Hawd markii lagu soo qayliyay aniga iyo wariyaasha iyo ciidanka booliska waa baxnay barasaabkuna ismaamar buu soo bixiyay sidaas aanu ku tagnay dabeedna aanu ku soo maray dhulkan sida bariiqo kale iyo balacasa iyo kumburaha iyo aduu tuuliyo fara badan baan soo marnay iyo degmooyin indhahayana ku soo aragnay dad aad u dhibaataysan marka dadka kale muxsiniinta waxooda waxaysta waxaan ka codsanaynaa inay dadka wixii la heli karo la soo gaaro xukuumaduna horena way u dadaalaysaa hore wax waa loo keenay iminkan wixii la heli karo suuragal iyo gudida abaaraha in dadka la soo gaarsiiyo dadka sida aad u liita xanuun bay leeyihiin dad reer dhan baan oo jiifa dadkoodu jiifaan waa arki doontaan oo guri afar qof ku xiran tahay waan soo aragnay oo afartu u waalan yihiin xoolihii ka baxeen odayga islaamka inta taagan iyaguna waa la isugu dhow yihiin Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Home Cable TV xarunta gobolka Hawd ee Balli Gobolle